زكي نسبي يا حبيب الله يا خير العربي ذكركم قوتي كنزي ومطلبي قضاء حيلتي يا نبي يا نبي قنلني مناي وحسن الختام عليك سلامي اللهم صل وسلم وبارك عليه waxaa galabta farxad weyn noo ah inaanu ixtifaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu dhigayno xaflad kaloo iyaduna cajiibana ay noo feertaallo oo ah qur'aanka arda dhammaysay oo khatimtay oo insha allahu tacaala halkan aana uguna ducayn doono kutubna aanu ku guddoonsiin doono haddii alla idmo madrasadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa rawdo waxaan u malaynayaa sanadkan baa ii ah 15 sano intaan joogay gudaheeda oo aan ka shaqaynayay dadkii waagii aan qabtay dhashay baa marakan qaangaara waxay ku tusinaysaa waqtigaasi waqti dheer inuu yahay intaas waxaanu ka shaqaynaynay madrasadu inay kor u socoto aysan hoos u socon haddaan waqti la gelin oo dadaal la gelinna galabta meesha ay joogto ma ay joogteen ilaahay subxaanahu wa tacaala baana ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaana karsiiyey oo na waafajiyey madrasadu waxay leedahay 3 farac oo kale oo shaqeeyo iyaguna weliba dugsiyaal yaryar aan ahayn dugsiyaal waaweyn oo boqolaal arday ay dhigtaan ah insha allahu tacaala iyagana xafladahoodu waa galbaha soo socdo waa galabta khamiista iyo galabta arbacada xafladdu marka sidaas ayay ku saabsan tahay waa labada xafladood oo waaweyn oo iska feer socda oo sanad walbaba aanu sidaas yeelo oo aanu ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aan dhammayska aanu isku darno oo laba xafladooda aad iyo aad qaali u ah waxaa kaloo farxad labaad noo ah galabtay ardada inay ka mid yihiin dad waarid ah oo hooyooyin ilaa 4 gaaraya oo iyaguna waxa weeye quraanka inta bilaabay meesha ku dhameeyo galabta waxa weeye xafladii ardadaas ciyaalkooda la qalin jabinaya iyaduna waxa weeye waa wax aad iyo aad loogu farxo muddada inta meesha joogay waa arkay maamooyin quraanka dhameeyo hooyooyina laakiin insha Allah taala waxa wali noo dhiman aabayaal iyaguna inta quraanka bilaabay iyaguna dhameeyay way noo dhimantaa laakiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa iyagana inaanu helo oo xafladaha soo socda iyagana insha Allah taala aad aragtaan baan ka shaqayn doonaa insha Allah taala maxabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa bahrun la saahila lah wa aslu iimaan almu'min qofka mu'minka ilaahay rumaysan subhanahu wa ta'ala iimaankiisa asalkiisa way nabigu muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ala la iimaan allah liman la mahabbata lah aw kama qala habibu calayhi salaatu wasalaam hooy iimaan malaha qofkan mahabba lahay nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo yiri la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in aw kama qala habibu calayhi salaatu wasalaam qofku waxa weeye iman rumayn oo iimaan dhab laga ma helin hatta uu ahaado mid iga jecel naftiisa ilmihiisa iyo waalidkii iyo dadkoo dhanba bale nabigu wuxuu ina amray ina nafteena ka jeclaano ilaahay baana inoo sheegay taas oo rabbi koonka Allah wuxuu yiri annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nabiga ayaa uga xaq badan ka mudan mu'miniinta naftooda naftaadu shaydaanka ay saaxiib la tahay inna nafsa la amaaratun bisu'i naftu xumaan bay amartaa naftu waxa weeye waxa naarta lagu galayay jecesha
laakiin nabigu waa xariisun calaykum wuu idinku dadaalayaa inaad hanuuntaan buu ku dadaalayaa inaad hagaagtaan buu ku dadaalayaa inaad akhlaaqda wanaagsan qaadataan buu ku dadaalayaa inaad nuurka nebiga raacdaan buu ku dadaalayaa inaad adduunka dadka ugu sarraysaan buu ku dadaalayaa aakhira inaad jannada gashaan buu ku dadaalayaa xariisun calaykum wey midna waa amaaratun bisuu'a waa naftii nafteenna inoo ka fiican cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu u yimid nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasaxbi wasalam markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow wax kasta waa kaa jeclahay ila nafsa alatii bayna jambaya nafta aniga igu jirta maahane markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min nafsii وكما قال حبيبه عليه الصلاة والسلام قفكين مر رمين إلى نفتيسا وإيقاتش على هذا عمر مركاسو والله يا رسول الله الآن نفتي دوان كاتش على هذا مركاسا النبي يقول عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يا عمر عمرو هدا شوكتا إيمانك هدو كوس كامل نغضي اللهم صل عليه وسلم عدد ما كان ومما يكون صلاة الرحمن عدد القرآن على محمد مظهر الرحمن نعم لها برق أشرق من شمس الذي تشرف به المرسلون هيا هيا آنست النار نظر سنا موسى أمر مصباحا برب المدينة محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد إنك الهادي شفيع أمير الوحي مرشدنا محمد محمد بدرنا بل أنت شمس بنورك ضاءت البضحى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد إن شاء الله تعالى وحن وحير كتابنا نبينا سيرديسي iyo dhalashadiisii bilowgeedii salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nebigu maalin bishaan oo rabiicul awwal ah 12keeda maalin isniina ayuu nebigu koonkan ku soo biiray walow maalmaha iyo bishaba inta maalmaha ay khilaaf ka jiraan haddana sida saxiixa intaas ayuu dhashay waxaa loo baahan yahay inaan nebiga siiradiisa wax badan ka ogaano ilmaheenna aan ku tarabiyeyno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid waatuu ku lahaa adibuu awlaadakum calaa 3 khisaal xubbi nabiyikum wa xubbi aali beytin wa qiraa'ati alqur'aani fa ina xamalata alqur'aani fii dilli illaah yowma laa dilla ilaa dillahu maca anbiyaa'ihi wa asfiyaa'ihi نبينا صلوات الله وسلامه عليه حديث حكول ياي ور أولادنا كويت بيا صدع وحيالات كويت بيا حب نبيكم نبي جعل كيس أولادنا كويت بيا وحب آل بيت آل بيت كنبي جعلان تضع علمينا كويت بيا وحاكلوا كويت بسان وقراءة القرآن قرآن كآخرين تيسا علمينا كويت بيا يا بسم الله يا مصطفى بالله كذ يا رسول الله يا جاور دري بسم الله يا مصطفى نبيك يا رسول الله يا عزوتكم لي يا عروتكم لي يا نور بدر لي في سر والجهر بسم الله يا مصطفى حبيبي يا رسول الله لله قابلني بالباب أدخلني
في الحال لاحظني باليسر والنصر بسم الله يا مصطفى حبيبي يا رسول الله بالله باشرني بالباب أدخلني في الحال لاحظني باليسر والنصر